بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan ka sheekaynaynaa faa'iidada uu leeyahay cloves runtii clovesku faa'iidada uu leeyahay laga sheekayn karo hadii la yiraahdo wada oo gambar la soo qaato caawadana wada lagama sheekayn karo runtii waxa weeyaan wuxuu kordhiyaa dhiigga cad uu kordhiyaa herniyada bahasha la yiraahdo ee masalka caloosha soo booda uu caawiyaa oo sida shaaha ugu cabto antiseptic uu yahay oo tooth egg iyo wax kasta iyo bad breath ka waa loo cabaa gaasta iyo nonsense-ka iyo waxyaabaha constipation caloosha dhiba oo dhan uu caawiyaa oo ka hortaga skinka premature-ka ah ee hore u gabooba ee aan hadiye jeer dadku qaadi karin oo de hore u wrinkleska u yeesho oo coodcooda uu caawiyaa haddii aad tahay qof dumara yeast-ka iyo infection-ka wuu yareeyaa freshness buu ka dhigayaa elastinka uu soo celinayaa haddaad discharge leedahay haddaad awlaad doonayso xataa laftirkeeda ha moogaanin awlaada iyo infertility-ga waxbuu ka qabtaa bahalkan haddaad karsato waa dawo dawooyinka China millions years ago baa la isticmaalayay oo waxaa loo isticmaalayay uun caafimaad cuntadaad ku darsan kartaa laakiin xataa hadaad maalin walba 2 mid ka qaniinto afkaaga weligaa ayaa la haylkaagii afkaaga waxba noqon maayaan faa'iidada ku jirta lama soo koobi karo ee caafimaadka wax walbana waxbuu ka tarayaa wixii wax walba wax ka taraya waxa fiican inaynu barano oo aynu inagu isku wacdino oo aynu isku waanino runtii inaad muddo inaad ama radiso oo aad muddo biyo kulul ku radiso muddo dheer si uu fuudku uga soo baxo ama karkarso muddo dheer ayuu u baahan yahay si uu fuuq uga soo baxo dumarka wuu wanaagsan yahay bini'aadmiga kale ragga wuu wanaagsan yahay qof aan u wanaagsan caruurta wuu wanaagsan yahay cid aan u wanaagsan ma jirto marka runtii faa'iidadiisa lama soo koobi karo aynu barano ilaahay waxyaabaha aynu aqaladeena kitchenkeena yaala iyaana dariiqa una ordino maalinta chemical adu baahatay dhakhtarka wax walba ana ka soo dhamaadaan aad maalinta uun aad cararto oo aad tiraahdo dhakhtar ilibka iga saara haddaad maalin walba kan iyo ka dhimanka heelka in yar intaad isku ridqdo markaad wax cuntaba sida afkaaga u yar gashato weligaa ayaa la heelkaagii afkaaga wax noqon maayo sidaynu sheegnayna dumarka aad iyo aad buu bahalkan ugu wanaagsan yahay yeast infection ko dhan buu dilaa waxay lubricate buu ku sameeyaa elastin buu ku sameeyaa discharge ku iyo infection ka oo dhan waxyaabahaas oo dhan dumarku ka caawiyaa aad iyo aad buu u wanaagsan yahay hal ogaado hadda mid baan kariyay anigu hadda waxaan doonayaa inaan shiido oo aan dabki ka soo qaado waa kan kaadhimanna waan ku kariyay kaadhimanka maalin kale inuu isaga ka sheekaynayna labadoodii biyahoodii waa kan intaasaad cabaysaa ma sha Allah lagama sheekayn karo wanaagiisa hal ogaado